السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. دعوة شرفت لي كسر بعد أرق دمير. inay muslimiin ahaadaan ayuu kula dardaarmay nabi ibraahim wiilashiisa ismaaciil iyo isxaaq markuu geeriyoonayay wiilka cururta ismaaciil ayaa ku sii waday faafinta diinta dhulka makka halkaas ayuuna ku tarmay halka walaalkiisa isxaaq uu ku noolaa uu ku guursaday agagaarka qudus nabi isxaaq ayaa dhalay yacquub oo ay malaa'igta hore ugu soo bishaareysay saara ayayda yacquub markuu weynaaday ayuu dhalay 12 caruur oo kala bax ah caruurta nabi yacquub uu dhalay waxa ugu yaraayeen 2 wiil oo qurux badan oo la dhaho yuusuf iyo benyaamiin oo isku hooyo ah waxa la sheegaa hooyadooda inay geeriyootay markii ay yaraayeen nabi yacquub walaashiis ayaa jeclay wiilka eedid u tahay ee yuusuf sidoo u jeclaaba yacquub waxay samaysay xiyalad ay kaga qaadanaysa yuusuf yacquub wax ay ku qarisay yuusuf sida caadada agtooda ahaydna waxay ahayd in la haysto qofka laga helo baadida waxayna u sheegtay qoyska inay wax tabayso waana loo ogolaaday inay ka raadiso deedna waxay ka heshay yuusuf waxay iraadinaysay sidaas ay ku qaadatay yuusuf agteeda ayuuna ku noolaa ilaa ay ka geeriyooto kadib wuxuu u soo laabtay yuusuf aabiisa yacquub iyo walaalihiisa maalmaha ka mid ah ayuu yuusuf ku arkay riyada 12 xidig dayaxa iyo cadceed oo u sujuudayaan wuxuu u sheegay aabiisa yacquub ayaa fahmay inay tahay riya dhab ah una bishaareynaysa heerka yuusuf uu noqon doono mustaqbalka wuxuuna ogaa yacquub in guulaysta kasta ama qof kasta ku socdo wadada guusha inay ka hor imaanayso caqabad wasiil ama dadkan ugu dhowna ugu daran tahay nabi yacquub ayaa ku yiri yuusuf wiilkeygii waxa ugu sheekeenin riyadaada walaalahaaga oo markaas isku dayay inay wadada kaaga jaraan dhagar shaydaanku waa cadow waswaasiyo dadka sidoo ilaahay u doortay awoowayaasha ibraahim iyo isxaaq una dhameystireen nimcooyinka ayuu adigana ku dooranayaa wuxuuna ku bariyaa fasirida riyada uuna ku dhameystirayaa nimcooyinka taasina waxay kordhisay jaceylka yacquub uu qabo yuusuf ilaa ay dareemeen walaalaha kale wayna saameysay isagoon u sheegin riyada walaalaha yuusuf ayaa ka miseeray walaalkooda yuusuf wayna u tashteen waxayna dhaheen aabaheena wuxuu naga jecel yahay yuusuf iyo walaalkiisa inagoo ka tira badan oo ka awood badan anfacaya qoyska aabaheena wuxuu ku sugan yahay baadi iyo gaf qaarkood ayaa soo jeediyay in la dilo yuusuf ama loo musaafiriyo loo tarxiilo dhul fog kadib iyaga markaas ay galaan booska yuusuf markaa ay tooba keenaan eena noqdaan dad hagaagsan balse midkood ayaa ku yiri hadilina yuusuf ay ku tuura ceel isagoo nabad qaba kadib socotada ceelka soo marta ayaa qaadanayso haddaad wax samaynaysaan sidaas sameeya ra'yigaas ayay isku raaceen kadibna waxay u yimaadeen aabahooda yacquub waxay ku dhaheen aabo maxaad noogu aamini la'daa yuusuf inaga ayaa u naseexeeni inala dirbirihana la daajiyo xoolaha hana nalna ciyaaro waan ilaalinaynaaye nabi yacquub ayaa ku yiri waxa ay murjinaya inaad wataan aad fariisisaan meel deedna aad ku mashquushaan daajinta xoolaha iyo ciyaarta marka ay timaado yey ay cunto idinkoon ogeen walaalaha yuusuf ayaa ku dhahay nabi yacquub hadday yey timaado ay cunto yuusuf inagoo dad koox ah waxaynu nahay dad khasaaray nabi yacquub ayaa ku qancay hadalka walaalaha yuusuf ilaahayna uma waxyoonin nabi yacquub inay khiyaanayaan ilaan ilaahay wuxuu u qorsheynayay nabi yuusuf qorshe cajiib ah oo u damaan qaadaya mustaqbalka aroortii sida caadad ahayd markay u baxayeen daajinta xoolaha ayay waxay sii aadeen dhanka ceelka oo ka fog gurigooda si ay ugu ridaan ceelka markay ceelka ku rideen ayaa malag u yimid nabi yuusuf malagaasna uma imaan nabi yuusuf inuu badbaadiyo ceelka ka saaro balse wuxuu u yimid inuu u bishaareeyo kuna dhaho waad u sheegi doontaa walaalahaaga falkan ay sameeyeen maalin iyagoon ogeyn aan ku garanaynin in adiga yuusuf tahay sidaas ayuu nabi yuusuf kula xasilay cidladii siday u xasishay bahaajar hooyada awowgiisa ismaaciil deedna waxay bilaabeen walaalaha yuusuf inay diyaariyaan xeelad ay ku qarinayaan khiyaanadooda waxay soo qaadeen khamiiska yuusuf waxayna ku wasakheeyeen dhiig been ah deedna guriga ayay yimaadeen xilli fiid ah iyagoo is oohinaya kuna dhaheen nabi yacquub markaanu sameynaynay loolan orod ayaan yuusuf fariisinay alaabtanada agteeda keligii kadib waxaa timid yey wayna cuntay adiguna nama rumaynaysid ama run sheegne nabi yacquub ayaa dareemay inay been sheegayaan wuxuuna ku yiri waa arin ay idin qurxisay naftiina sabar wanaagsan ayaan sabrayaa ilaahay ayaan la kaashanayaa waxaad tilmaamaysaan waxay islahaayeen fogeeya yuusuf yacquub idin jeclaade balse waxaa dhacday cagsigeeda qalbika buke walaal ma galo qalbi nadiif allah ayaa hago wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wassalaamu calaykum